ololaha kaambeynka doorashada madaxtooyada oo maalintiisii lixaad galay ayaa xisbiga kulmiye oo maanta kaltanka u lahaa ayaa waxa guud ahaan gobolka saaxil gaar ahaan magaalada berbera isku soo baxay taageerayaal aad u tiro badan oo xisbigaasi taabacsan kadib markii ay ku soo wareegeen jidadka waaweyn ee magaalada berbera waxay isugu soo biyashubteen fagaaraha 26 Juun ee magaalada berbera waxaana halkaasi kala hadlay mas'uuliyiinta xisbiga kulmiye iyo waliba wasiirro ka socday xukuumadda sare ee Somaliland sidoo kale waxa iyaguna ka qayb qaadanayay saaka ololaha kaambeynka doorashada ee gobolka saaxil gaar ahaan magaalada berbera qurbajoog ka soo jeeda deegaanka gobolka saaxil oo iyaguna ka tirsan xisbiga kulmiye wuxuu yahay taariikhda sheegto qoraya Muuse Biixi waxa uu marxaatu furay 250 qof oo meelo kala duwan jooga wuxuu yahay Muuse waa keelay kay dadku rabaan ayuu noqday bishaadhan shaqadii aynu soo haynay waxa ka harsan muddo yar kooban waxa loo baahan yahay qof waliba inuu ku hubsado musharax Muuse Biixi Cabdi Muuse Biixi goal. Yes, thank you. Kulmiye is the future of Somaliland. inantani waa i'tiraafki Somaliland waxaan ahay dareenka Muuse Biixi Cabdi kulmiye ha guuleysto marka reer berbera codkiina ha luminina yaan leedin iibsan yaan la oran berbera waxa le orange bala waxa le yellow and green aad iyo aad baad maanta u soo banaan baxdeen ma sha Allah tabarakallah waanu idinku faraxsanahay anagu tigir baanu idin soo goosanay oo qurbahaanu idin ka nimi waxaan uga nimina waa maxay waa Muuse Biixi Cabdi la caawiyo aynu cod ka siino Soomaha reer saaxilow waxaan ka imi Norway waxaan soo maray Hargeysa markaan soo dhaafay aan soo dhaafay magaalada Dacarburg waxaan u soo galay wadooyinkii ugu fiicnaa waxay tusaysaa taas inuu yahay gobolkeenu gobolkii qaniga ahaa dhalinyarada reer saaxil waxaan leeyahay dhalinyarada reer saaxil isbedel baynu u baahanay isbedelkana yaa keeni kara Muuse Biixi Cabdi waxaan aad iyo aad u ogahay dadkan shucuurtooda quruxda badan ee reer berberi waa hawga guusha lagu kala badiyo waxaana noo muuqatay in xisbiga kulmiye boqolkiiba 99 idinku aad taageersantiin maxamed cabdullaahi soo fariistay Universal TV magaalada berbera